ان markale kulanti wanaagsan arday ku soo dhawaada lesson 3 casharka saddexaad waxaan ku jirnay chapterka loo yaqaan manufacturing industry casharkiisa saddexaad oo noqonaya factories qodobada influence saameynta ku leh the location meesha ay dhacdo warshadu and development iyo horumarka of industries warshadaha meesha locationka iyo development of industry iyo horumarka warshadaha hadaba at the end of the lesson dhamaadka casharkan learners will be able to barta kasta waa inuu awood u leeyahay ko describe gareeyo factories qodobada influence saameynta ku leh the location and development of industry location ka meesha warshad laga sameeyay ama ay ku taalo and the development of industry iyo development-ga warshad number 2 apply inuu ku apply gareyn karo factories influential location of industry marka aad adigu rabto inaad ganacsi tusaalahan meel warshad aad furdo waa inaad ku apply gareyn karto qodobada aan baranay oo ah factories influential location arday walba waa inuu apply gareyn karo ku dabaqi karo taas way macna ku dabaqi karo ku practical gareyn karo ku apply gareyn karo factories influential location and development of industry casharkeenu waxa ku saabsan yahay lesson 3 oo ah factories influencing location and development of industries good factories influencing the location of industry qodobada saameynta ku leh the location of industry meesha warshadu ay dhacdo the following qodobadan soo socda factories waa qodobada that determine go'aamiya the establishment marka la aasaasayo of industries warshadaha and the level of industrialization in different parts of the world qaybaha kala duwan ee adduunka marka aynu ka hadlayno qodobada saameynta ku leh asaaska warshada asaaska aynu ka hadlayno waa maxay waa marka aad warshad sameynayso location-ka aad u doorayso meesha geographical location-ka aad u doorayso qodobada saameyn ku leh iyo sidoo kale arrimaha development-ga la xiriiro qaybaha kala duwan ee adduunka good qodobka koowaad ee saameynta ku leh the location and development of industry waa maxay waa the capital waxaad ku soo dhigatay business-ka marka aynu ka hadlayno ardayo waxa jira wax la yiraahdo factor of production waxa kamid ah waynu dhigan doonaa capital land labor entrepreneur iyo qaar kale oo badan sidaa darteed capitalku waa maxay waa qodob kamid ah qodobada saameynta ku leh the location meesha warshadu ay dhacayso ama ay ku taalay and the development of industry iyo horumarka warshadaha hadaba capitalku for both labadaba the equipment qalabka for industrial production ee wax soo saarka warshadaha and the money ayaa ay noqonaysaa that is used aynu u isticmaalno for industrial investment marka aynu rabno inaan warshad maal galino labaduba waxa ay muhiim u yihiin waa money-ga iyo equipment-igu waxa ay muhiim u yihiin waxa loo yaqaan development to success inay warshadu noqoto mid guuleysata ama organization-kaasi uu noqdo mid success ah capitalku inta badan waxa loo tixgeliyaa inay tahay mid kamid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ardayo ee marka warshad laga hadlayo horumarkeed ama location-ka ay dhacdo qodob kamid ah qodobada ugu muhiimsan ee saameynta ku leh waxa loo yaqaan location iyo development of industry waa maxay waa capital ereyga capital macnaheedu waa maxay waa lacag capitalka lagu marka capitalku muxuu noqon karaa equipment-iga ruuxoodu lacag bay joogaan and the money iyo lacagta ayaa noqon kartaa good labaduba waxay muhiim u yihiin inay warshadu noqoto mid development gaadha to succeed si ay u guuleysato good number 2 qodobka labaad ee kamid ah qodobada saameynta ku leh location and development of industry waa maxay ardayo availability of raw material meesha warshada ay ku taalo waxa aad saameyn ugu leh raw material-ka aynu ka hadlayno waa resource waa maxay waa resources marka aynu ka hadlayno raw material-ku required waxa loo yaqaano raw material-ka waxyaalaha ceeriin aynu u baahanahay must be steady supply waa in la heli karaa some industries standing qaar kamid ah warshaduhu waxa ay ku yaalaan meelo waxa weeye xiran oo closing town ah inta badan waxa ayna ku tiirsan yihiin warshadaha qaar imported raw material waxyaalo dibadda laga soo dhoofiyo oo imported ah if hadii marka waxyaalaha raw material-ka spaalka uu ku badan yahay meesha warshadu ku taal warshadaasi maxaa ku dhacaya waxa ay noqonaysaa waxa ay soo saaraysaa waxa loo yaqaan wax soo saar badan sidaa darteed warshadu qodobada saameynta ku leh waxa loo yaqaan location-ka iyo development-ga industry-ga waxa kamid ah
availability of raw material tusaale ahaan meesha warshadu ku taalo haddii ay available ka yihiin resource-ka raw material waxa ay ka maarmaysaa in dibadii wax ka soo dhoofsato macnaheedu waxa weeye capital badan oo ka bixi lahayd ardayo lacag badan oo ka bixi lahayd marka aad wax soo dhoofsanayso haddii ahaan lahayd cashuur badan oo la saari lahaa waa ka maarmaya saa darteed warshadii waxa ay ku guuleysanaysaa inay noqoto warshad isku filan ama wax soo saar badan oo more production soo saarda good waxa kamid ah sidoo kale qodobada saameynta kuliye waxa loo yaqaan location-ka iyo development-ka industry-ga waxa kamid ah ardayo labor availability labor waa shaqaalihi the local labor force dadka laborka ay waxay u baahan yihiin waxa loo yaqaano right size with sufficient skill waxay u baahan yihiin inay helaan xirfado ku filan si ay u noqdaan kuwo ku habboon warshadda si ay warshadiina u noqoto improving productivity warshadu haddii ay rabto inay siyaadiso oo ay improve ku samayso production-keeda marka aynu ka hadlayno wax soo saarkeeda waxa loo baahan yahay warshadaas oo saameyn ku leh waxa loo yaqaano labor-keeda ayaa saameyn ku leh therefore markasta oo ay warshadu siiso skills badan tababaro badan shaqaalaheeda waxay noqonayaan kuwa ku habboon industry-ga warshadiina waxa ku dhacaya improving productivity in uu siyaado waxa loo yaqaano wax soo saarkeeda good labor inta badan can be skilled waxay noqon karaan kuwa skilled or unskilled inta badan waxa loo yaqaano unskilled sidoo kale waxa jira cheap unskilled labor shaqaale raqiis ah laakiin aan xirfad lahayn ayaa waxa inta badan laga helaa meelaha densely populated area meelaha bulshadu ay ku badan tahay ogo a country with skilled manpower wadanka uu ka haysto dad xoog ah oo labor ah laakiin skilled ah has faster industrial growth waa uu ka hormaraya dhanka warshadaha tusaale ahaan wadanka Japan ama Japan oo kale inta badan waa wadan aan resource lahayn weeye haddana waxay soo saardaa wax soo saar badan waxyaalaha ka caawiya waa maxay waxay haysataa skilled manpower waxay haysataa dad skilled ah sidaa darteed waa ay ka faster industrial growth than without midka aan haysan waxa loo yaqaan shaqaale aan skilled ama qualified skilled ahayn waa ay ka koritaan badan tahay taasina waa sababta ay uga kordhay good sidaa darteed waa inaad xasuusataa laborkuna waa mid ka mid ah qodobada saameynta ku leh waxa loo yaqaano location qodobada saameynta ku leh location-ka and the development of industry waa maxay labor markasta oo ay warshadu haysato labor waxa loo yaqaano skilled waxa dhacaya waxa loo yaqaano waxa loo yaqaan improving productivity wax soo saarkeedii baa siyaadaya markasta oo ay warshadu aysan haysan shaqaale aan tababarnayn oo aan skilled ah raqiis ha ahaadaan laakiin wax soo saarkaadu wuxuu noqon doonaa mid waxa loo yaqaan sidii loo baahnayn aan ahayn sidoo kalena waa inaad xasuusataa wadanka uu ka haysto shaqaale ka skillsan ka xirfad fiican waa ka koritaan badan yahay marka aynu ka hadlayno industrial growth marka si kale u eegnana waa ka si shaqaale fiican yahay oo waxa ka jira employment opportunity badan marka si kale u eegnana wadanka si dhaqaale ahaan maadaama warshadiisa uu kobitaan ku socdo bulshadu standard living of people ayaa kor u kacay wixii waa linkage waa maxay waa wax seer kale oo isku xiran good ardayo sawirkani waa sawir ku tusinaya factories of production image marka aynu ka hadlayno hadda waxaynu soo dhiganay labor resource capital waa maxay guud ahaan qodobadaas waxa la isku yiraahdaa factories of production waxaad ku soo qaadateen maadada business-ga galaaska form 3 ayaad ku soo dhigateen barajeen maya form 4 chapter-ka la yiraahdo national income ayaa ku jira good marka maxaa kamid ah factor of production land-ka kamid ah land-ka maxaa soo hosgelaya natural resource khayraadka dabiiciga ah waataynu hadda soo dhiganayna waxa loo yaqaano availability of resource ama raw material land-kii baa kamid ah markasta land-ku maxaa haddii aad warshad haysato oo aad rabto inaad capital aad haysato aad warshad ku fadho haddii aadan dhulkii aad ka furi lahayd ama meeshii resource-ga aad u baahnayd aadan helayn macnaheedu saameyn bay kugu yeelanaysaa good meeshay ka laan fiican tahay oo ay ka resource fiican tahay macnaheedu waa maxay production ahaan way ka fiicnaanaysaa good sidoo kale laborku waa maxay waa the human marka aynu resource-ga ka hadlayno saddex baynu u qaybin karnaa guud ahaan waa natural resource waxa loo yaqaano man made resource iyo guud ahaan waxa loo yaqaan human resource good sidaa darteed laborku gaar ahaan human inputku waa maxay waa the production process waxa qayb ka yihiin wax soo saarka ayaa qayb ka yihiin
waxa jira sidoo kalena enterprise waa maxay waa fikradii waa inaad fikrad ganacsiga la imaan kartaa tusaale meel looga baahan yahay aan looga baahnaynba waxa aad keentay aqliyad noqon mayso sadarta enterprise muxuu qayb ka yahay factories of production qodobka ugu dambeeya waa maxay waa capital oo aynu soo dhigano oo aha lacagtii wax lagu maalgelinayay waa in capital la helaa lacagta qalabka lagu gadayay iyo lacagtii waa in la helo si halkaasi waxa loo yaqaano looga sameeyo industries warshad looga sameeyo guud ahaan marka qodobada saameynta ku leh waxa loo yaqaano the location and development of industry maxaa kamida land ka kamida labor ka kamida enterprise ka kamida capital kana kamida good walina way noo socdaan qodobadu waxa kale oo kamida qodobada saameynta ku leh waxa loo yaqaano the location and development of industry waxa kamida transport and communication marka meesha ay leedahay suitable transport and communication gaadiidii isgaarsiin ku haboon system will ensure maxaa halka dhacaya constant and efficient flow of raw material wax soo saarka raw materialka waxyaalihii ceeriinka ahaa inay uu dhaco waxa loo yaqaan flow qulqul ama isweydaarsi inuu dhaco industry-ga gaar ahaan finished products to the market in suuq la keeno tusaalahan marka aan anigu leeyahay warshad soo saarda kalluunka oo ay ayl ku taalo ayl maadaama ay xeeb leedahay kalluunku waa waxyaalaha perishable-ka oo qurma haddii aan haysto communication fiican oo aan kula xiriiri karo meelaha looga baahan yahay iyo wada fiican iyo gaadiid fiican taas maxay noqonaysaa waxa ii suuragal ka dhiga waxay saameyn ku yeelan kartaa waxa loo yaqaan aniga wax soo saarkayga productionka warshada iyo sidoo kale guud ahaan warshadii horumarkeedii ayaa saameyn ku yeelan kartaa meesha ay marka ka leedahay transport and communication fiican waa ka wax soo saar badan tahay waa inaad sidaa u ogaataa ardaygu good sawirkani waa sawir ku tusinaya transport and communication waxaad aragtaa gaari meel yaal iyo sidoo kale qof telefoon ku hadlaya waa isku xirayeen marka aan anigu ganacsade ahay oo aan warshad leeyahay waxa waajib ah inaan si aan u suuq geeyo adeegii aan bixinayay ama sidoo kalena badeecadii aan soo saarayay inaan adeegsado waxa loo yaqaan communication inaan adeegsado aan dhaho maxaa loo baahan yahay mise tan baa loo baahan yahay maxaan ku qabanaa oo adeega therefore waxa jira xiriir ka dhaxeeya waxa loo yaqaan transport and communication ka iyo marka aynu ka hadlayno location and development of industry waana qodob kamid ah qodobada saameynta ku leh the location and the development of industry location-ka warshadu ay dhacdo iyo horumarka warshadaas meelaba meesha ka waran meesha hadii ay leedahay poor transport and communication meeshaasi waxa wax soo saarka warshadaasi maxaa ay saameyn ku yeelan kartaa inaysan wax soo saar badan aysan sameyn ayaa ay saameyn ku yeelan doonto good waxa iyaduna kamid ah qodobada saameynta ku leh the location and development of industry market-ka kamid ah horta maxaa market la yiraahdaa ardayo market ereyga market waa maxay ereyga market waa suuq waa ognahay laakiin maxaa suuq la yiraahdaa suuq waxa la yiraahdaa waa meesha ay ku kulmaan demanderska and supplierska dadkii wax suuqa keenay oo wax soo saarka lahaa iyo dadkii baahida u qabay ee danaynayay meesha ay ku kulmaan ayaa aynu suuq ku naqaanaa sadarteed markii ay anigu warshad aan leeyahay tusaalahan warshad kalluumaysi aan ayl ku lahaa markii aan helo meeshii aan kalluunka u iibgeyn lahaa ama aquatic animalka oo idil sida argostada oo kale maxaan u baahanahay market baan u baahanahay sidaa darteed availability of market where the product will be sold marka uu marketka yahay mid available kaasoo aan wax soo saarkayga ku iibin karo waxa ay ka dhigtaa industry-gii inay gaadho mid ka mid ah goolasheedii to produce goods for sale at profit waxayna soo saaraysaa badeeco si ay uga hesho faa'iido badan sidaa darteed haddii aan market jirin haddii aan suuq jirin horta goorma marka aynu ka hadlayno waa inaad ogaataa wax soo saarka marka aynu ka hadlayno marka adigu aad beer leedahay kow horta beertu waxay noqon kartaa iyada subsistence farming marka aad wixii aad ka dheragto ay adiga iyo familkaagu aad quudataan wixii dheeriya baa la suuq geeyaa dee xageeba goormaad suuq geyn kartaa marka aad hesho waxa loo yaqaano dad wixii u baahan ama market uu ka dhaco transaction isweydaarsi uu ka dhaco halka umbaad sidaa darteed marketku waa qodob ka mid ah qodobada saameynta ku leh waxa loo yaqaano ardayo location-ka iyo development-ga industry location-ka warshadu dhacdo iyo waxa loo yaqaano development-ga industries-ka iyo horumarka warshada good qodob kale oo ka mid ah qodobada saameynta ku leh waxa loo yaqaano production-ka iyo location-ka warshada waxa ka mid ah ardayo availability of power ama energy markasta oo la helo waxa loo yaqaano tamar
waxaynu soo sheegnay waynu soo dhigana chapterka energy-ga oo energy-gu waa awoodda aynu u baahannahay si aynu shaqo u qabanno si sidaa darteed warshadda ay wax soo saar badan ay u samayso waxa saameyn ku leh energy markastoo ay hesho tamar kicisha mashiinadii waxa ay u fududaanaysaa inay processing and manufacturing activities more efficient and fast inay si dhaqsiya ah wixii u samayso inay wixii wax soo saar badan oo dhaqso ah oo efficient ah inay warshaddu samayso sidaa darteed availability of power ama energy-gu waa maxay waa qodobada saameynta ku leh location-ka iyo development-ga warshadda maxaa kaloo iyaduna ka mid ah qodobada saameynta ku leh development-ga iyo location-ka warshadda availability of water good availability of water waa maxay waa in meesha warshaddu ku taala ay tahay meel biyo leh warshadaha way ku kala duwan warshadaha qaar waxay u baahan yihiin biyo badan warshadaha qaarna biyo badan ba uma baahna laakiin biyuhu waa sector ka mid ah waxyaalo badan buu muhiim u yihiin tusaale ahaan marka aad deegaan doorayso waxaad ka fiirinaysaa water supply sidoo kale marka aad warshad samaynayso ama meesha aad warshad ku apply garaynayso ama meesha ay warshaddu ku taalo waxyaalaha saameynta ku leh ee lagu doorto waxa ka mid ah availability of water biyaha ayaa ka mid ah factories use considerable amount of water qaar ka mid ah warshaduhu waxay u baahan yihiin plenty of water biyo badan in their operation si ay hawlgalladooda u sameeyaan and therefore best located close to a place with enough water like river or lake maxay ku khasbantahay marka warshadii u baahan biyo badan si ay wax soo saar ama operationka ama hawlgalladeeda ay u samayso maxay u baahan tahay inay ka agdhawaato with enough water meelo biyo ku filan laga helayo sida river and lakes sida webi iyo haro sida webi iyo haro river iyo lakes waxay ku khasbantahay inay ka agdhawaato meel biyo leh gaar ahaan biyo aan dhammaad lahayn good sidoo kalena maxaa ka mid ah qodobada saameynta ku leh ardayo waxa loo yaqaan location-ka iyo development-ga warshadaha waxa ka mid ah cost of land marka aynu ka hadlayno dhulku waxaanu soo sheegnay hadaaya inuu ka mid yahay meelaha kheyraadkana laga helo warshadana si kastoo aad capital u haysato haddii aadan dhul haysan suuragal maaha inaad halkaa ka samayso therefore maxaa saameyn ku leh waxa saameyn ku leh costiga of land meeliba where the industry can be located in an area markasta oo ay warshadu ku taalo meel magaalada dhulku waa qaali sidaas darteed meelaha adduunka oo idin inta badan warshadaha waxa laga sameeyaa meelaha remote area-ga sidaas darteed markasta oo dhulku uu qaali yahay maxaa uu sababi karaa discourage industrial development waxa uu hoos u dhigi karaa waxa loo yaqaan industrial development tusaale garowe very simple garowe marka anigu aan rabo inaan warshad ku soo kordhiyo oo aan u baahanahay dhul boqol ah oo tusaale ahaan magaalada banaankeeda oo kale meel gaar ahaan laamiga oo transportation fiican leh laamiga oo kale u dhow dhulkii aad buu qaali u yahay sidaa darteed muxuu samayn karaa wuxuu sababi karaa discourage of industrial development arrimihii horumarkii warshadaha inuu niyad jabiyo ayaa sababi karaa sidaa darteed lacagta ama costiga dhulku qayb buu ka yahay qodobada saameynta ku leh location-ka iyo development of industry warshadaha good haddaba casharkeennii ahaa qodobada saameynta ku leh location-ka iyo development of industry oo ahaa casharka saddexaad chapterka manufacturing industry ardayo maanta intaasu inuu ka egyahay inta aanan ka bixin ka hor waxaan kuu dirayaa shaqo guri 3 su'aalood ka kooban su'aasha koowaad waa maxay what are the factors waa maxay qodobada that influence saameynta ku leh the location and development of industry location-ka iyo development-ga industry-ga warshada number 2 waa maxay farqiga u dhaxeeya what's the relationship between the location of industry and capital-ka iyo warshada location-keeda muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya markasta halka aan ku dadbiqiyo markasta oo aad capital fiican haysato iyo ku banti maxaa suuragal ah inaad hesho doorato meel ku habboon warshadii saadateed bal adigu adoo ereyadaada la imaanaya ka waa maxay xiriirka ka dhaxeeya number 3 in your own words adoo ereyadaada kaashanaya how sidee availability of water biyuhu impact saameyn ay ugu yeelan karaan the location and development of water biyuhu ilaa warshad biyo ma cabtee bal adu fikir sidee saameyn ugu yeelan kartaa intaasi waxa ku eg casharkeennii saddexaad ee ahaa factorieska saameynta ku leh warshada iyo arrimaheeda horumarkeeda gaar ahaan chapterku waxaan ku jirnay chapterka 7aad ee manufacturing industry intaan casharkan mid lamid ah ku kulmi doono waa macallin Caydiid oo inay kaga tagaya nabaadiino iyo nooli kulanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh